tani waa taariikh ay leeyihiin kuwii xabaalaha u galay jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland. بسم الله الرحمن الرحيم وأنا وناقصن أخيارته وديقة دعوانيسا كسر وهذا ورر كي صوماليدا كودي وجودن بي أو هذا هنوكله كدعوتان بيجكن مقالورات كانت تصاني هذا بعد معلومات كأتكم مقلدونتان وها كمدا سوماليلاند أو سيكول وسو جوابتي دولة الفدرال كصوماليا وطبعاً اللي حبي شافراد لبض كل لبعتين اللي مقالورات كاس أو فاسين تاني كوسو قدين وحكا عصنايا هذا ديجا داون يسو يوتيوب كا إيه فيسبوك على لبض إن هذا مقال كلايك صارت أو شير كريسو أو يجيسو عدة عبان أد بعد ما ستا إذا أنت السميدة إيه هذه السميدة أمبا سعد مقال كهردي ساكو مقلدين أينو كبلون صاحب يال wasiirka warfaafinta Somaliland Barkhad Batuul oo maanta shir jiraa'id ku qabtay magaalada caasimadda Hargeysa ayaa ka hadlay xiriirka si xoogaysanaya ee u dhaxeeya Israa'iil oo Yahuud ah iyo isagoo dhanka kale si kulul ugu jawaabay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Barkhad Batuul ayaa ugu horeyn shaaca ka qaaday in Somaliland dadkeeda ay soo dhaweynayso safiirka cusub ee Yahuudda Israa'iil ay u soo magacaabay xukuumadda Hargeysa Danjire Michel Tolam kaas oo ay dowladda Soomaaliya ay diiday. waxaan ka xukuumad ahaan si milgale iyo sharaf leh u soo dhaweynayaa buu yidhi safiirka dowladda Israa'iil ay u soo magacaawday suwarka u dhigay dalka Jamhuuriyadda Somaliland. u soo magacaabistan Ambassador Michel Tolan waxaan ku soo dhaweynayaa dalka madaxa bannaan ee 35 jirsaday iyo shacabkiisu ay leeyihiin adkaysiga ayuu sii sheegay wasiir Batuul. waxa kale oo intaasi si raacsiiyay waa guul labaad oo ku suntan qulubta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. waa sida warka u dhigay tani waa taariikh ay leeyihiin kuwii xabaalaha u galay jiritaanka Jamhuuriyadda Somaliland. waa sida warka loo dhigay tani waa taariikh ay leeyihiin muwaadiniinta Somaliland ee qurbaha iyo gudahaba ku sugan. dhanka kale wasiir Batuul oo ah wasiirka warfaafinta Somaliland ayaa hadalkiisa wata ayaa ku sii jawaabay jawaabo kulul oo uu siinay dowladda dhexe ee Soomaaliya isagoo oo sheegay in aysan waxba ka bedeli karin xiriirka u bilowday Somaliland iyo Yahuudda Israa'iil. waa sida warka u dhigay tani waa taariikh ayna wax ka bedeli karin buu yidhi Xasan iyo xayntiisa xamar joogta ee muddo xiriirkoodu dhammaaday ayuu sii raacsiiyay wasiir Batuul. waxa kale oo hoosta ka xariiqay in ay dhowaan dalal kale oo waaweyn ay aqoonsan doonaan allaweyne Somaliland ayna wadada ay ku socoto ay tahay buu yidhi hadda mid aad u wanaagsan. jawaabta Somaliland ka soo baxday ayaa saaka wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya uu cambaariyay tallaabadaas Yahuudda Israa'iil iyada oo xadgudub madax bannaanida ku tilmaamay safiir in ay u soo magacaawdo magaalada Hargeysa. wararkan oo iska hor imaanaya daawadayaal waxyaalihii dambe ee ku soo cusboonaada muuqaalada dambe ayaad ku daawan doontaan hadduu eebaydme fadlan muuqaalkan leeg ka saar oo sheer garay nabad.